qodobada warka ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalkan Itoobiya Mudane Damaqa Mokonon ayaa fariin u tabiyay shir ku saabsanaa biyo xidheenka oo ka dhacay Canada. mujtamaca diblomaasiyiinta ee Itoobiya ku sugan ayaa faahfaahin laga siiyay qorshaha horumarinta cagaaran ee wareegga saddexaad. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال ميل والبا دافع عالمka naga daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan warkii laanta afka Soomaaliga ee telefishinka qaranka waxa uu si toos ah idinkaga imanaysaa Disaaba waxaan idin waramaya anigoo Xamdi Maxamuud warkii oo dhameystiran ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalkan Itoobiya Mudane Damaqa Mokonon ayaa fariin u tabiyay kulan ka dhacay Canada kaasi oo ku saabsanaa biyo xidheenka webiga Abay Cabdullaahi Raabi ayaa soo koobay. ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda Mudane Damaqa Mokonon ayaa fariin ku saabsan biyo xidheenka weyn ee dib u curashada Itoobiya u tabiyay shirka webinarka ay qabanqaabisay safaaradda Itoobiya uga furan dalkaasi Canada ee ku taala magaalada Ottawa. ra'iisul wasaare ku-xigeenku fariintaasi uu tabiyay wuxuu kaga hadlay in Itoobiya ay waajib ku tahay in iyadoo ka faa'iidaysanaysa kheyraadkeeda biyaha ay wax ka qabato dhibaatooyinka dhinaca tamarta ee muwaadiniinteeda haysta heerka noloshoodan ay kor u qaado oo hawshaasina tahay mid loo fulinayo hab aan waxyeello ugu geysanaynin waddamada hoose ee biyaha ka faa'iidaysta. wuxuu ra'iisul wasaare ku-xigeenku ahna wasiirka arrimaha dibadda uu intaasi ku daray maadaama Itoobiya biyaha loo yaqaano webiga Nile ay 86% biyaha iyada ka soo maaxayihiin iyadoo taasi ka duulaysa inay dhismaha biyo xidheenka weyn ee dib u curashada Itoobiya ay bilowday. wuxuuna sheegay in xilliyo kala duwan la qabtay waan laga wada hadlayo sidii loo fulin lahaa heshiiska ama warbixinta mabda'a ku salaysan ee saddexda waddan ay gaadheen ee ku taariikhaysan 2015 ee taariikheedka Yurub si wax looga qabto loo xalliyo walaac ay muujinayaan waddamada Masar iyo Suudaan. wuxuuna Mudane Damaqa intaasi ku daray in la yeesho wadahadlayaal taxanaa iyo arrimaha aan la isku heshiinin ama khilaafku ka jiro si xal loogu helo in waawaantaas uu dhexdhexaadiyey midowga Afrika. Mudane Damaqa wuxuu intaasi ku daray iyadoo la og yahay in biyo xidheenka weyn ee dib u curashada Itoobiya uusan waxyeello weyn u geysanaynin waddamada hoose Suudaan iyo Masar in labadaasi waddan ay ku dadaalaan in arrintaasi muuqaal caalami ah u sameeyaan sidaasna ay turunturo ku noqdaan waanwaanta u dhexdhexaadinayo midowga Afrika taasi ay tahay midaan la qaadan karaynin. waxa uu sheegay Mudane Damaqa in mowqifka labadaasi waddan ay taagan yihiin ee ay doonayaan in lagu xisaabtamo heshiisyadii la saxeexay xilligii gumaystayaasha inayna marraba noqonayn kuwo cadaaladda ku salaysan oo Itoobiya qaadan karto. Mudane Damaqa waxa uu sheegay in arrinta labada waddan waa Masar iyo Suudaan ay doonayaan Itoobiya ay saxeexdo heshiis lagu qasban yahay oo ku saabsan qaybsiga biyaha taasina ay noqon karin oo la qaadan karaynin oo arrintaasi qaybsiga biyaha ay tahay mid u taala dhammaan waddamada uu webiga Niil maro. mujtamaca diblomaasiyiinta ee ku sugan dalkan Itoobiya ayaa faahfaahin laga siiyay qorshaha horumarinta cagaaran ee wareegga saddexaad. mar kale Cabdullaahi Raabi. We have prepared already 7.766 billion. diblomaasiyiinta waddamada kala duwan ee Itoobiya ku sugan ayaa faahfaahin laga siiyey barnaamijka ololaha cagaaran ee saddexaad ee Itoobiya ka socda ee diyaargarowgiisuna weli socdo. haddaba wasiirka biyaha waraabka iyo tamarta injineer Salashi Bakala ayaa diblomaasiyiintaasi faahfaahin ballaaran siiyey. waxa waqti xaadirkan diyaar buu idoo la qorshaystay 7.766 bilyan oo geedaha abuurka ee tallaalka ah. wuxuuna sheegay in 1 bilyan oo geedahaasi ka mid ah qorshuhu yahay in waddamada dariska la siiyo. waxa uu sheegay in dalka Suudaanta koonfureed la siin doono 91 milyan oo geedahaasi tallaalka ah oo hawsha qaadidda tallaalka geedahaasi durba la bilaabay. sidoo kale in dalka Suudaan la siinayo 356 milyan oo geed oo kuwa tallaalka ah. Eritreana 29 milyan, Djibouti 9 milyan, Soomaaliya 129 milyan. sidoo kale in Kenyana 380 milyan oo geed la siinayo oo tiradaasina marka la isku geeyo ay noqonayso ilaa 1 bilyan oo geed. wuxuuna wasiirku sheegay in hawshaas si midho
dhal ay ugu hirgasho in taageerada loo baahan yahay dadaalkaasi loo fidiyo. Haddaba diblomaasiyiinta wadamada kala duwan ee munaasabadaasi ka qayb qaadatay waxay sheegeen in tallaabadaasi ay tahay mid weyn oo waxtarkeeduna sarreeyo oo wadamada gobolka isu soo dhoweynaysa, maadaama geeduhu ay nafta kor u qaadaan ee nafta ku xidhan yihiin. In arrintan macnaheedu uu weyn yahay in geeduhu cuntada iyo noloshaba ay u roon yihiin. Saas awgeed in tallaabadaasi ay Ethiopia qaaday ay aad u wanaagsan tahay. Mas'uuliyiinta kale ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Federaalka Ethiopia waxay sheegeen in tallaabadan ay tahay mid aad u weyn oo isku xidhaysa xiriirka Ethiopia oo la leedahay wadamada deriska ah. Ethiopia horumarta kaligeed inayna macna samayn karaynin oo markaa loo baahan yahay in Ethiopia iyo deriskuba ay si wada jira horumarka uga qayb qaataan, wixii dhibaato la kulmaana ay qaybsadaan oo arrintaasi mid la sii xoojinaya ay noqonayso. qaybaha kala duwan ee shacabka ku nool magaalada Addis Ababa ayaa sheegay inaysan marnaba ogolaanaynin faragelinta reer galbeedka ee ku aadan siyaasadda gudaha dalkan Ethiopia. qaar ka tirsan dadweynaha magaalada Addis Ababa ku nool oo ETV la hadashay ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan faragelinta wadamada dibaddu ay arrimaha Ethiopia ku sameynayaan. እኛ በነጻነት በዚህ ምድር ላይ መኖር ሲገባን እኛ የነጻነት ባለቤት ሆነን እንደገና እነሱ እጃችን ለመጣ iyadoo loo baahan yahay inaannu annagu waddankayaga si xor ugu noolaanno oon xorriyadna leenahay inay gacantana maroojiyaan oo taa isku dayaan lama qaadan karo. si la mida muwaadin kastoo Ethiopia si uga xumaanayo ayaan arrintan uga xumahay. qaaradda Yurub waxaa dhici karta inay qamadina siiso, laakiin xorriyad nama siinayaan. mid kastoo naga midi waa inaannu isu diyaarino ilaalinta sharafta waddankeenna. ምዕራባውያን አንደኛ ነገር እኛ ሀገር የተለያየ ሪሶርሶች አሉ ያለ መጠቀም የሚያደርጉት ጥረት ነው። reer galbeedku waxay doonayaan in khayraadka waddankeenna ka jira ay isticmaalaan. wax walba waa in wadahadal lagu xalliyo. faragelin kuma samayn karaan arrimaha waddankeenna. annagu faragelin kuma samayno arrimaha Maraykanka, faragelin kuma samayno arrimaha Ingiriiska. arrintayadu waxay tahay inaannu si xor isu hogaaminno, taasina waa mid korkana laga siiyey. si la mida guushaannu adwo ka muujinnay waa inaannu dadaallo oon waddankeenna gaarsiino heer sii wanaagsan. የዲፕሎማቲክ ጫናውን ለመወጣት እኛም መስራት አለብን። saanu cadaadiska diblomaasiyadeed uga fakanno oon uga badbaadno ugana gudubno waxaa loo baahan yahay inaannu midnimada gudaha xoojinno. haddaannu arrimaheenna gudaha si wada jira uga shaqayno, cadaadiska diblomaasiyadeed waxba nagama qaadi karo, waannu ka gudbi karraa. haddaannu taa samayno, khayraadkeenna nagaa isticmaali karraa, waxaannu ka baxaynaa saboolnimada. አንድ ቤት ስትገቢ አንኳኩተሽ ነው የምትገቢ፣ ዝም ብሎ ተዘሎ አይገባም። ስለሆነ ምንድነው ከመንግስት ጋራ ባለ ፖሊሲ ተወያይቶ inaannu fikradaha ku kala duwanaanno taasi dhibaato ma laha, laakiin waa inaannu yeelanno wax naga wada dhexeeya oonu si wada jira ugu dadaalayno. waa inaannu mowqif xooggan qaadanno oonu sharciga fulinno. dhankooda jahliyadaha qurbo joogta ah ayaa baraha bulshada ka cambaareeyay faragelinta wadamada reer galbeedka ee ku aadan arrimaha siyaasadda ee dalkan Ethiopia. dalalka reer galbeedka ee caalamku faragelinta ay ku hayaan dalka Ethiopia iyo siyaasadeeda waxaa banaanbax ballaaran kaga soo horjeestay kooxda loogu magac daray Defend Ethiopia ee isla markaasina ka kooban qurbo joogta u dhalatay dalkan Ethiopia ee ku nool dalalka kala duwan ee caalamka oo isla markaasina ugu baaqay in beesha caalamku iyo waliba dalalkaasi kala duwan ee doonaya inay faragelin ku sameeyaan siyaasadda dalkaasi ay ka gaabsadaan arrimahaasi. waxaana ay banaanbaxaasi ballaaran isugu soo baxeen kooxdani fadhigeedu uu yahay dalkaasi Ingiriiska ee Defend Ethiopia ayaa iyaga oo isla markaasina iska kaashanaya qurbo joogta u dhalatay dalkan Ethiopia ee ku nool dalalka qaaradda Yurubta, waqooyiga Maraykanka oo isla markaasina isugu soo baxay banaanbax ballaaran oo isla markaasina dhinaca baraha bulshada ay kala dagaalamayaan oo qorshahaasi iyagoo ka jawaabaya baaqa loogu baaqay in ololaha heer qaran ee isla markaasina lagu qabtay dalkani Ethiopia iyagoo ka duulaya. waa hagaag daawadayaal, waxaan idinka raali gelinaynaa ciladaasi farsamo ee nala soo diristay. haatana deegaanka Gambela, waxaa deegaanka Gambela ka soconaya ololaha diyaargarowga qorshaha cagaaran ee wareegga saddexaad. mar kale wariyahayaga Maxamed Maxamuud. diblomaasiyadeed ee Ethiopia ay la leedahay dalalka kala duwan ee caalamka waxaana ay fariimahoodaasi ay ku soo bandhigeen in ay jiraan dalal badan oo isla markaasina waxyaabo wanaagsan ka qabtay dalka Ethiopia balse aan loo baahnayn in xumaan lagu dhameeyo oo xiriirka diblomaasiyadeed ee wanaagsan la xumeeyo ee ka dhaxeeya Ethiopia iyo dalalka kala duwan ee doonaya imika waqti xadirkan faragelinta siyaasadeed ku lug leh ee ku doonaya in la wiiqo xiriirka diblomaasiyadeed ee Ethiopia ay la leedahay dalalka kale. waxaana kamid ah fariimahoodaasi ay ku dhawaaqayeen in aan dhismaha biyo weyne dibcashada Ethiopia aan marnaba la joojinaynin buuxinta wareegga labaad ee lagu buuxinayo dhismaha biyo-xidheenka weyne dibcashada Ethiopia.
dhinaca doorashaduna waa mid u gaar ah dalka Itoobiya arrimaha gudaha ee dalka Itoobiyana maaha inay cid kale soo farageliso mana ogolaanayno inay cid kale faragelin ay ku samayso sidoo kalena dhismaha biyo-xidheenka weyn bulshada Itoobiyana waa arrin Itoobiya u taala oo aan u baahnayn in faragelin kale la soo dhexgashado oo faragelin lagu sameeyo si loo wiiqo ama loo joojiyo loo hakiyo gudahan waxay isugu soo baxeen banaanbaxa dhinaca baraha bulshada ee ay ololahooda iyo fikradooda soo bandhigayaan waxay ugu baaqeen dalka doonaya inay swiiqaan xiriirka diblomaasiyadeed ee Itoobiya leedahay dalalka caalamka inay ka gaabsadaan sida ay sheegayso warbixinta aanu ka helnay safaaradda Itoobiya oo fadhida dalkaasi Britain وهاجاك داوديال هاتنا wararka naga soo gaadhaya deegaanka Soomaalida madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa xadhiga ka jaray cusbitaalka darajada koowaad kaasi oo laga hirgeliyay magaalada Qabri Bayax cusbitaalkaasi ayaa waxa ku baxday adduun lacageed oo ka badan 30 milyan oo bir warkan aanu ka helay wakaalada warbaahinta deegaanka Soomaalida aanu talowno madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa xadhiga ka jaray cusbitaalka magaalada Qabri Bayax mashruuca ballaadhinta xarunta caafimaadka magaalada Qabri Bayax ayaa waxa ku baxday in ka badan 30 milyan oo bir waxaana fuliyay xafiiska caafimaadka dawladda deegaanka Soomaalida madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida oo ka hadlay munaasabadda xadhiga jarka ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay ahmiyad ballaadhan siisay adeegga caafimaadka isbitaalka maanta la furay wuxuu ka mid yahay ilaa iyo 11 isbitaal oo intii isbedelka kadib qaarkoodna cusub yihiin qaarna kor loo qaaday darajadoodii oo haday ahaan jireen isbitaalka koowaad heerka koowaad isbitaal guud laga dhigay qaarkoodna ay yihiin isbitaallo muxuu ahaayay lagu sameeyay ballaarin lagu sameeyay oo adeegay bixinay la sii ballaariyay marka ilaa 11 isbitaal ayuu ka mid yahay taa waxaa dheer ilaa iyo 135 ambulance baa la soo iibiyay isbitaal intii ka dambeysay isbedelka waxaan ka hadlayaa sektorka caafimaadka waxyaalaha muuqda ee halkan fagaaraha laga sheegi karo waxaa kale oo aad ogeydeen toddobaad ka hor baan filayaa ama 10 cisho ka hor ilaa la furay warshadii oxygen-ta oo ah wax hadda COVID-ka naga anfici doona laakiin guud ahaan isbitaalladeenu oxygen-ta waxa lagu keeni jiray waxay ahayd Addis Ababa hadda ka hor marka waa waxyaalaha yar ee halkan aan ku soo qaadi karno haddii aan ilaano xafiisku bal wixii wax qabadkiisa ha soo dhigo si sidaa ka ballaaran buu soo dhigi karaa xafiis walbana sidaas oo kale wax qabadkiisu wax muuqda oo tangible oo laga hadlayo weeyaan marka isbedelkaas runtii kadib dhanka horumarka xukuumaddu wax badan bay ka qabatay taa macnaheedu maaha baahiyaha shacabka oo dhan baa ayaa maartay la kafeeyey maaha macnaheedu baahiyaha shacabku idinkaa ka hadlaya magaalada Qarbax biyo male magaalada caasimadda ee Jigjiga biyo male markii abaartu inagu dhacday hadda waad ogtihiin sidoo shacabku ahaa marka baahiyihii shacabka oo dhan baa la dhimbay lagama hadlayo laakiin marka la eego xukuumadda intii ay jirtay wax qabad lagu dirsan karo oo ballaaran oo dhammaan degmooyinka iyo maamul magaalooyinka iyo caasimadaha deegaanka kulli gaaray weeyaan waxa taa soo saari doona insha Allah maalmaha soo socda gobolka kale waan tageynaa hadii lacala maalmahan maadaama gobolka faafan socodkan ugu badnaa loo qaato in horumarku uu ku koobnaa halkan waxaan filayaa hadda laga bilaabana meelaha halka ka fogfog mashaariic laga furay ayaa jiraya marka si ballaaran wax qabad waa loo qabtay macnaheedu maaha wax inta ka badan lama qaban karin waa la qaban karaa waa laga yaabaa haddii la sii dadaalka la sii laba jibaaro laakiin waxaan odhan karnaa wax qabad la'aan dhanka horumarka xukuumadda laguma xaman karo deegaanka Soomaalida ayaa yeelanaya taariikhda abid markii ugu horeysay kuliyad lagu baran doono noocyada kala duwan ee ciyaaraha kuliyadaasi ayaa waxa laga dhagax dhigay magaalada Qabri Bayax warkan aanu ka helay wakaalada warbaahinta deegaanka Soomaalida aanu talowno madaxweynaha dawladda deegaanka Maxamed Cumar ayaa dhagax dhigay mashruucani oo laga hirgelinayo magaalada Qabri la bilaabayba taasi oo ka dhigaysa in kuliyadani ay ahayd mid horay qorshaheeda loo sii dhameystiray mashruuca ku baxayso adduun lacageed oo dhan 80 milyan oo bir ayaa lagu baran doonaa qaybaha kala duwan ee ciyaaraha waana kii koobaad ee noociisa ah oo laga dhisi doono guud ahaanba deegaanka Soomaalida xagga waafajinta sharciga dhagax dhig baa meesha ku qoran laakiin dhagax dhigna waa bilowgii mashruucan miisaanna waa loo hayaa qandaraaskiisina waa la bixiyey qandaraaslihii waa lagu wareejiyey site-kii marka waa bilowgii mashruuca la odhanaya laakiin taariikh ahaan maadaama in dhagax dhig uu jiray ahayd oo horey loo dhigo
ayaan waafajinayna marka saa in horta loo fahmo waa muhiim sport academy ama academy sport malaha deegaankeedu taa waxay muujinaysaa dhibaatada faraha badan ee naga haysata dhanka muxuu ahaayey maareynta dhalinyarada sportigu hadda ka hor si laga hadlay maaha oo keliya uun wax maarirow noqday wax nolol laga sameeyo akademiyaddan hadda la samaynayo halkan inta shaqo abuur ay samayn doonto waad garan kartaan iyo nolosha ay kusoo kordhinaysa magaalada sport maalin walba waxaa imanaya haddii xitaa deegaankeena dhalinyarada aan ka tagno dad yow kale oo gobollo kale ka imanaya deegaano kale oo halkan xaflad lagu qabanayaa jiraya nolosha deegaanka o dhan bay aaggan oo dhan bay bedelaysaa marka waa wax aad iyo aad runtii muhiim u ah waxaa ku baxaysa lacag ka badan ilaa 80 milyan waxaan kula dardaarmay madaxfiseedka in tayada mashruucan kor loo qaado haddii aad rabto wax dheeraad ah nagu kordhiso laakiin tayada mashruucan in kor loo qaado oo uu noqdo meel tiimo fara badan oo xulalka kubadda cagta ee deegaanka iyo kuwa volleyballka iyo kuwa basketka iyo kuwa tenniska iyo kuwa orodada iyo athleticsada iyo dhammaantood meel aynu ugu diyaar garowno ciyaaraha oo ku soo ururino oo markaynu tartamo gelayno keligiina inaan ku dayno maaha waxaa ila quman inaan sii ballaarino oo akademiyaal noocan oo kale ah kolkay ugu yartahay 11 gobol mid in laga sameeyo dhalinyaraduna waxay bilaabaysaa marka inay sportiga jeclaato taasina waxay keeni doontaa in shaqo abuur fara badan ay dhalinyaradu ka helaan inay nolol ka helaan mustaqbal ka samaystaan marka runtii waa bilow wanaagsan xafiiskana waa ku bogaadinaynaa sida ay mashruucan usoo diyaariyeen dhulka meesha uu ku yaalan waa aragtay magaalada qarbax magaalo sarreysa weyn magaalada meelaha ugu sarreysa deegaanka ay tahay halkan hadday ku tababartaan ciyaartooygoonu ilaa iyo highland markay tagaan oxygen levelkii loo baahnaa iyo sababta waa loo doortay taasaa ku ka mid ah marka aad baan maaragtay xafiiska ula dardaarmaya in la dedejiyo shaqadiisa xukuumaddana wax walba oo taageera way siinaysaa wasiirka xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad deegaanka Soomaalida mudane Cumar Siyaad Ibrahim ayaa madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta kaleba u sharaxay dhismaha kulliyadani sport academy-ga sida caadiga waxa loogu talagalay maaragtay ciyaaryahanada kala duwan iyo macallimiinta iyo garsoorayaasha kala duwan goobtii wax lagu soo saari lahaa nooc kasta oo ciyaar ka mid ah weeyaan marka wuxuu yeelanayaa qaybihii chiefka qaybihii cuntada qaybihii tababarada lagu sameeyay guud ahaan baa ayuu yeelanayaa mashruuca si guud ahaaneed waxa weeyaan dhismayowga nii muuqdeemka waxa weeyaan kuwan waa qaybihii chiefka weeyaan iyo qaybihii maaragtay klaasyadii wax lagu baranay qaybahan ground plus 3 ah ee nii muuqda qaybahan kale waxa weeyaan adarkasan xagana waa kafeegii iyo wax iskugu jiraan maaragtay qaybihii training centerka oo imika kaas oo kale waa goobaha xarumaha traininga lagu dhex sameeyo ciyaaraha imika guryaha gudooda lagu ciyaaro tennisyada table tenniska iyo waxa weeyaan karambullada waxyaabaha adu gudaha lagu ciyaaro wagaag daawadayaal markana qodobka ugu dambeeya xilitaminteena wareed oo idinka hayno dhankaasi dalka dibadiisa hogaamiyaha ciidanka Nigeria Ibrahim Atahiro ayaa la sheegay inuu ku geeriyooday shil diyaaradeed warku waxa uu tilmaamayaa in cimilada ka jirtay meesha lagu magacaabo Kaduna oo aad u xumayd ay ku dhinteen General Ibrahim iyo 9 qof oo kale General Ibrahim oo 54 jir ah ayaa bilo ka hor jagadaasi loo magacaabay ayaa ku dhintay shil diyaaradaasi oo isku daysay inay soo caga dhigato madaxweynaha wadankaasi Nigeria Muhammadu Buhari ayaa uga tacsiyay geerida lama filaanka ah ee ku dhacday generaalka wahagaag daawadayaal warkii waa naga intaa aan dib idin xasuusiyo qodobadii warka ugu doorka runaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalkan Itoobiya mudane Damaqa Makonnen ayaa fariin u tabiyay kulan ka dhacay dalka Canada kaasi oo ku saabsanaa biyo xidheenka webiga Abay mujtamaca diblomaasiyiinta ee ku sugan dalkan Itoobiya ayaa laga siiyay faahfaahin qorshaha horumarinta cagaaran ee wareegga saddexaad wagaag daawadayaal waxaanu intaasi ku soo afmeeraynaa warkii laanta afka Soomaaliga ee telefishinka qaranka waxa si toos ah idin la socodsiinaya anigoo Xamdi Maxamuud aniga khiyaarta kale tabinta warkan igala qayb qaadatay waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo